مات فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا. sheekh Abubakar waxyaabii ugu qosolka badnaa social media kala kulantay sawaan Instagram, Facebook waxa ugu qosolka badnaa kala kulantay hal noogu dhaqo wax badan waa jiraa wato waxyaabo badan jiro Instagram marka isticmaashid ama Facebook ama Snapchat waxyaabo qosol badan cajaa'ib ah aad marbaad kala kulmaysaa hadda waxyaabaha maskaxdeeda ku soo dhacay waxa kamid ah wiil ayaa jirto oo 3 sano ka hor su'aal ay weydiiyay wuxuu dhahay Abubakar ma guursatay waxaan nahay ma wali ma guursan wala wallahi aan ina la guursada fiican qofkii tuu yiraahdo wix la mid ah kadib wiilkaas muddo kadib ayaa is aragnay 6 bil kadib ayaa is aragnay markaas wuxuu dhahdana Abubakar haye yani ma ismaalayay ma guursatay ana waxaan dhamay kadib wuxuu dhahay madaxana wuxuu dhahay waxaan ku sheegaa walaal oo yani muddo aan rabo inaan ku sheego kadib waxaan muxuu sheegi doonaa wuxuu dhahay maalmaha kamid ah anigoo ku jira Instagram kaaga sawir aad soo gelisay ayaa waxa aka 10,000 qof oo like gareys kadib dhanka like ku dhufta anoo fiirinay yani yaa kamid ah dadkaas like gareey waan ku dhufto dhahay hoosaasi aaday wuxuu dhahay gabar shidan sawirkeeda afkuuda kadib waan ku dhufto dhahay marka ku dhufto tan ma iska baqatid caadi iska yaa waqti message aan bixi karaa mugta khaas dhanka message-ka aad wada waxaan ku dhahay salaamu calaykum barakaatu Abubakar saaxiibkiisa ahay waxa ah ka sawirka Abubakar inaan la garasmo isbargarna adeeg ha gabadhu waxay dhahday maxaa cadeynayna Abubakar saaxiibadiin sawirka u diraan yaa soo joogsaa yani kadib adi meeshii isku sii barteen laba bil markay sheekaysanay arrinta serious isku bedeshay wuxuu dhahay waan nikaxsaday ma sha Allah kadib wuxuu dhahay madaxana Abubakar qofkii cuni waay waa loo cunaa ana ma fahmo maxaa la cunaya la cunaa yani wuxuu dhahay adag faa'iideysan waxaan arki waaye yani adigan intaas adiga ku falow gareeyaan anagana like-gaaga wax ka qaadinayna u dhahay sallayaab lahu صراحه يعني soo koobaysa yani عجيب يعني ملايين kugu taxan يعني I think waa qisada ugu quruxda badan qisada qarniga noqonaysa kan ka faa'iideystay kan like uu ka faa'iideystay hadda waa la dhalay badan oo like inay ka faa'iideystaan aad sii siinayso ka faa'iideystaan la fursad badan inay ka qarabtaan هذه